السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wuxuu 15 sano ahaa baadiri hogaamiya kaniisad ku taala koonfurta Afrika, waxaana raacsanaa in ka badan 100,000 oo Masiixi. wuxuu arkay riyo cajaa'ib badan, waxaa galay qalbigiisa nuurkii Ilaahay. wuxuu islaamiyey boqolaal Kiristan ah. tani waa qisadii baadirigii islaami dhowaan ee la socod wanaagsan. balse daawade, intaynu u gudan gelin qisadaasi, fadlan gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. fiidiyowgana like saar, asxaabtaadana u sheergareey. Sleeping. Then I heard this voice. It says, tell your men to wear white kurtas. ilaahay subxaanahu wa ta'aalaa addoommaha isaga ayaa hanuuniya ama baadiyeeya. cidduu doona wuu hanuuniyaa, cidduu doonana wuu baadiyeeyaa. Ibraahim Richmond wuxuu rumeeyey diinta Islaamka, Ilaahayna wuxuu u gartay Rabbi. risaaladii Nebi Muxammedna wuu rumeeyey. Ibraahim isagoo ka hadlaya qisadii uu ku islaamay wuxuu yidhi, waxaan baadiri ahaa 15 sano. waxaan amiir ka ahaa kaniisad ku taala koonfurta Afrika, waxaana i raacsanaa 100,000 oo Masiixi. ugu dambayn waxaan arkay riyo cajaa'ib badan. waxaan hurday kiniisadda, waxaana ka hurday qol aad u yar. kadibna waxaan maqlay cod riyada dhexdeeda, waxaana la igu yidhi, u sheeg raggaaga inay xirtaan dharka cadcad. waxaana is idhi, waa dharkii muslimiinta. markaas soo kacay, waxba kama soo qaadin riyadii. hase yeeshee riyadii mar labaad baan arkay, iyo mar saddexaad. markii ugu dambaysana codkii wuxuu noqday mid aad iyo aad xooggan. u sheeg raggaaga inay xirtaan dharka cadcad. kadibna waxaan aaday jamaacadii kiniisadda, waana u sheegay arrintii. Ilaahayna wuu ii fududeeyey oo dhammaantoodii way aqbaleen islaamnimadii. waxaana kiniisadda dhexdeeda shahaadada ugu qabtay boqolaal Kiristan ah. wuxuuna Ibraahim Richmond ka mid yahay xujayda sanadkan xajinaysa. wuxuuna go'aansaday inuu koro Jabalunuur, buurtii nebiga loogu waxyooday, naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. tani waa qiso cajaa'ib badan oo mudan qof kasta oo muslim ah inuu ku cibro qaato. allaahumma ihdina as-siraata al-mustaqiim wajcalnaa min ahli al-firdawsi al-a'laa fi al-'illiyiin ونجنا برحمتك من عذاب الجحيم. الله أعلم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين